waxaa golaha fadhiya 56 mudane dhaqdhaqaaq dambe ma jiro golahuna wuu inoo furmay mudanayaal waxaa maanta ajendaheena ugu horeyn doonaa warqad ka timi xafiiska madaxweynaha oo ku socota gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedaduna tahay ansixin xubno guddi mudane gudoomiye anigoo tixraacaya go'aanka sumadiisu tahay ee ka soo baxay sumadii inta la sheegay sumadiisu tahay kuna taariikhaysan 24 bishii shanaad kana soo baxay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedadiisuna tahay go'aanka ansixinta iyo diidmada xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka waxaan halkan idinku soo gudbinayaa 3 xubnood oo ka mid ah guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka fadhigii golaha wakiilada ee qabsoomay 23 bishii shanaad waxay mudanayaashu goluhu ku ansixiyeen 4 xubnood oo ka mid ah xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka waxaa kale oo mudanayaashu goluhu min 41 cod oo ogol ah ugu codeeyeen 3 xubnood oo ka mid ah guddida iyadoo loo baahnaa kala badh iyo hal 42 ogol ah inay ku ansaxaan sida uu dhigayo qodobka 3 faqradiisa 8 xeerka lambar 14/2022 haddaba 3 xubnood ee ka midka xubnaha guddidu maadaama ay buuxiyeen shuruudihii lagu soo xulayay ee uu xusay qodobka 3 faqradda 4 xeerka 14/2022 sidoo kale xubnahaasi mudanayaasha goluhu kumay diidin cod kala badhiya hal 42 oo diidan ah taasi oo haddii ay dhacdo noqon lahayd inaan mar labaad lagu soo celin karin golaha wakiilada balse wuxuu goluhu ugu codeeyay 41 ogol ah waxaana ka dhiman ansixintooda min hal cod sidaa darteed waxaan golaha sharafta leh halkan mar labaad ugu soo gudbinayaa 3 xubnood ee magacyadoodu hoos ku xusan yihiin si aad uga gudataan waajibaadkiina dastuuriga ah sida uu dhigayo qodobka 3 faqradda 8 xeerka lambar 14/2022 mudanayaal 3 xubnood waxay kala yihiin Saciid Maxamed Cilmi Maxamuud Axmed Obsiye iyo Muxtaar Cabdi Jaamac maadaama xubnuhu ay soo mareen guddida arrimaha gudaha iyo amniga ayna ku soo lifaaqan warqad ah in goluhu waajibkiisa ka guto oo ay soo mariyeen screenkii maadaama aan golaha hor keennay oo ay mudanayaasha arkeen iminka waxa kaliya oo xaqaynu u leeynoogu leeyahay inaynu u codayno oo ama ogolaanno ama diidno mudanayaasha uu madaxweynuhu soo magacaabay ee 3 ah iyo xeerku qoraya sidaa darteed 56 mudane fadhiya dhammaan golaha oo dhan cod baan gelinayaa ogol diidan iyo aamus waxaan jeclahay inaan golaha wax hadalaya buuqa la gelin qof isagu correction samayn kara ama wax sixi kara ama hadli kara ama wax sheegi kara oo aan aniga ahayn ma jiro macallimada gudoomiye ku xigeen kaliya anuu baa hawsha hogaaminaya qof kasta oo arintaas sameeyana dibadda u baxaya waxaanu u baahnay wax walba inay nidaam inoogu socdaan haddii la hayno mudanayaasha golaha wakiilada ee ogol in la ansixiyo mudane Saciid Maxamed Cilmi gacanta taagan mudanayaasha diiday gacanta taagan mudanayaasha ka aamusay gacanta taagan
waayahay 750 mudana fadhiya waxaa ogolaaday 50 waxaa diiday hal mudane waxaa ka aamusay 5 gudoomiyuhuna muu codayn sidaas codkaas ku dhacay mudane maxamuud axmed obsiye mudanayaasha ogol in la ansixiyo gacanta taagan mudanayaasha diidan gacanta taagan mudanayaasha diidan waayahay mudanayaasha ka aamusay maxamuud axmed obsiye waxaa fadhiyay 750 48 baa ogolaaday ciddii diiday ma jirto 7 ka aamusay gudoomiyuhuna muu codayn mudane mukhtaar cabdi jaamac mudanayaasha ogol gacanta taagan mudane mukhtaar cabdi jaamac mudanayaasha ogol gacanta taagan mudanayaasha diidan gacanta taagan waaye mudanayaasha ka aamusay gacanta taagan waaye dejiye waxaa fadhiyay 750 baa cod ka siiyey qof baa ma diidin 4 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn mudanayaal saddexdii mudane galaha loo keenay maanta mudane siciid maxamed cilmi waxaa fadhiyay 750 waxaa u codeeyey 50 baa ogolaaday xubin baa diiday 5 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codaynin sidaasuu ku ansaxay maxamuud axmed obsiye 750 baa fadhiyey 48 baa ogolaaday ciddii diiday ma jirto 7 ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn saasuu ku ansaxay mukhtaar cabdi jaamac waxaa fadhiyey 750 mudane waxaa ogol 250 wax diiday ma jirin 4 mudanena way ka aamuseen gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku ansaxay guud ahaan saddexdii mudane ee laynoo soo gudbiyey maanta saddexduba sidaasay ku ansaxay